بيئة waxaa imaan doonto runtii dhibka ay leedahay iyaan rabaa inaan kala hadlee biyadu taasiirka ay leedahay rabaa inaan idin sheego misaal baan idin tusinayaa Soomaaliya ka dhacay wiil yar oo Talyaaniga wiilka Talyaaniga aabayo hooyo kaliya ilma ka qaba diblomaasina weey aabihii waa Muqdisho weey waxa fadda boondheer weey ma sheeko buga aniga wiilkii yani hortayda uga sheekay arintii wiilkii waxa dhacday markii odagu shaqada ka soo rawaxo hooyaduna ay ka soo rawaxdo waa laba qof oo family ah wiilkan banaanka u bixiyaan cidana ay wiilkaaba u joogaba bas wiilkii xagoo aadaya marka ilmo Soomaali oo garangar ku ciyaaraya meesha jidka ah ayuu la ciyaaraa maalin walba ilaa ilmo kale ma hayste ilmo garangarta la ciyaara garangarta la eriyayo kale ilmo ku daaway xoogaa kuwa kale to waaweyn ku soo biiray way la ciyaareen anugii intii aabihii hooyadii ay hurdaayeen anugii waxay geeyeen dugsi quraan ay geeyeen ilmahan raacaya dugsi quraan la soo dhiganaya ambuulada la cunayo wax ka soo cunaya markii ilmo laga ducaynayo waxa dhan markaas ay dhan kitaabka ha taabanin kala gaalata kitaabka taabanin gaalata quraanka ha taabanaya anug yarka iswa iska yar oo iska aamusay uma sheegay waxaas ay ku dhigayaan hada ilmuhu ku dhigayaan uma sheegay aabihii hooyadii ogow anigana saas oo kale tan loo dhaqmaya ogaada maalinka dambe iyagoo ciyaaraya yeedhan hana taaban haranaati hana taaban haran mutaqaanin ma yaqaanin feere haran waxa Soomaaligu yiraahdaan eyga nijaaso weeye haduu ku taabto marka haranku waa eyga wixii la iska eriyo laga fogeeyo haran la yiraahdaa si ay u fahmaan madoona ciyalkee waxay ku yiraahdeen haran baati hana taabanin soo wadta haran maxuu Talyaani ku yiri doob haran markaas la yiri haran waxa weeye eyga aad la ciyaartaa marka najaasa kugu taala najaasadana ha nagu taaban najaasadaada adiguna anugii ilmahan raba inuu la ciyaaro dhagaxday dhigayna la dhigdhigo rabaa waxaan hana taabanin haranaatee harankiina waa loo sheego waa eygan taabashadiisa la ciyaarayso guriga inta ku soo maanta wuxuu yiri eyga ku bilaabo ul waa yaabeen odagii aabay waxa leeyahay eyga maxaa u dilaysaa waa fiican yahay waa faratelaaga waaye faratel way brotherka yiraahdo waa faratelaaga maxaa u dilaysaa wuxuu haran weeyo faratela ma non ay fratello yiri waa way tarabba haran waayo waa wadiga eyga tarabba haran waayo dheen tarabba waayo aad buu haran u yahay wasaq u yahay waa yaabeen eygi ama guriga ha laga saaro ama anaga ha laga saaro nag waxay ku qasabtay ninkii inuu eygi markii dambe cid kale oo Talyaani iska siiyo hay wiilkii yarka ilma ka qabay wiilkiina wuxuu yiri eyga ama aniga ama eyga ayagoo yaaban meesha looga yimid ma oga barka waa seexdaan maalin kasta ayagu inay banaanka niman u joogaan yaryada ku deeyay ma oga maalinkii dambe yiraahdeen radiga buriiqa baa taageen uf buriiqa maxaa la yiraahdaa uu yiri waxa dheen buriiqa waxa la yiraahdaa ilmaha la gudin baa la yiraahdaa adiga waa naga duwanta wasaqaad adiga ilmihi waa ilma yaryare sarwaalka yar inta iska wada fureen tusiyeen in la gudan yihiin asagana aan gudnayn waa kaas la marta ina qashin tahay waa arinta hadda aan sheegayo kala gabdhaha la leeyahay waxay qarinaysaa oo kala soo markaysid hadaba waxay qarinaysaa saan ogow arinta hadaba waa the same yani procedure weeyaan oo lagu la dhaqmayo waxa yiri waa inaan ka takhaluso arinta sayada waa tagay canugii ilmihi waxay u geeyeen istaalkii Martiin la dhigi jiray geeyeen ilmihi say canugii u wadeen waa in la soo gudaa anigan waa yaabeen abiyo hooyadii kaxbay ku noqdeen canugu waa kaxayeen waa la soo guday halka canugu ay qabaan Talyaanigu maxay sameeyeen waa imtixaanan yihiin waxa la yiri baqtiga cunta maalinkii dambe doofaarka cuntaha la yiri doofaarka cuntaha oo doofaarka maxaa dhibay doofaarka sida eygo kale too yahay tarabbo najis yahay asagana gurigii ku noqday
wax alla wixii gasac u yaalay iyo wax alla wixii la doofar Soomaali lagu maqalay gasac lagu leeyahay meeshii asaga ay sheekeynay gasacyadii oo dhan oo Talyaaniga ahaa oo doofarka ay boorka kula yimaadeen oo dhan كل انتو أرشوق وبي ويلكيركا خمرجين انتو قاتل ودلدي بولك لا داعي مركزو لبدو بنفس واي واحد المها waxa bar marka weyn ogaanaa sikasta intay yeelan u sheegi diiday saaso kale taa marka doofarka looga tufay anu gaas gaalka ah ilmaha naga doofarka leeyahay maxaa dhaay waa cunta haka is good man yella man yella Talyaani soo man yella waa cuntada ugu fiican weeye sandwich kan man yellada banini banini man yella marka cuna la leeyahay ilmaha naga saasa loogu daldalaa annagana sandwichka iyo maanta waxay ku jiraan oo kale kulligood loogu daldalaa because haduu yiraahdo mar rabo maanta dawdiido boqolaa ku kacaydo waxa lagu leeyahay hal naga tagna lama ciyaari kartidi ilaa iyaga superiority kale yihiin ilmihii yarka ahaa waa fahamta Sooma hooyadu ma oga aabuhuna ma oga marka sida canugaas yarka Talyaaniga aanay aabiyo hooyadii u ogeyn aanan ilmaha naga u ogeyn waxa la cunsiinay sida loola hadlay sida loola dhaqmay aanan ogeyn okay canugii waa la soo guday doofarkii waa diiday khamrigii waa jajabiyay maalintii dambeeto ilmihii markay dugsigii tagaan waxa la quraanka taabanin maxaa dhaay gaalata leeyri maxaa noqonaya muslim noqolayno مسلم سوى النقضاء واي لا إله إلا الله محمد رسول الله ده أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني المهم معلنا يقول نقدين عنه الشيخ بيقول نقدين دوسي كان أو تجيو قرآن كواخرين وحوير أيضا أبي ويدي وجاي من قرآن كم حصارت إلى جزء عما صابر توير صحفي توير أبي ويدي نحبت كم وجاي بوير مالين كده بيوحي وير هاي مقلع مرة بوحنا أذكر سنة دينك cuntadayda waa ii gaar way aniga muslim aan aanu yarka ah adoogii hooyadii waa qaraami gaareen waa soo guureen magaalada waxa soo degeen France ayay soo degeen aniga meesha ugu sheekeynay wiilku waa France way markay soo degeen wiilkii waxay islahaayeen waa idin soo noqon doona ma soo noqon masaajidkiisa ku xirmay dharkiisii uu qaatay ilmihii Soomaalida cid aan ahayn raaci maayo gabdhihii meesha ka shaqeynayay gabar kamid ah Soomaaliya af Soomaaliga wuxuu yaqaan sida anagu ugu hadlayno kale habartii aabuna Talyaaniga Soomaaliga ma yaqaaniin markuu iskala weynaan markii hore orgolyo waxa weeye asaga af Soomaaliga wuxuu bartay sidii ilmihi u baahleen ugu hadlay wuxuu yiri gabadhan Soomaalidan guursana gabadhu waa isku soo dhaceen bis waa guursan habartii adoogu sheegay wuxuu yiri ogaada aniga waxaan guursaday gabar muslima oo Soomaali aan guursaday waxa la daayirad naga tahay okay buu yiri بانه adinka idinta Allah buu yiri waxa dartan ugu xukuma laakiin anagu badana guursanay iyada muslima marrabo ilmahayga inay meel muslimin salka dhigaan ma doonayo meel muslimin ilmahayga salka dhigaan ma doonayo ogaada taas wiilkii saas uu gabadhii ku guursaday abi hooyada waxaan gabadhan Soomaalida ma arki karno markay muddo joogeen oo ilmo u dhasheen ay waxay ilmaha la waan aragno no buu yiri naagteena Allah hada shaano raali ka dhigtaan moogay ilmaha arki maydaan marka gaalata ilmaha way gaalaysiinaysa aniga arkay indhaygan ku arkay waxaad ogaataan marka canuga procedure la soo marsiiyay meesha uu ku dambeeyay in la ku dambaysiinay gabar iyo wiilba in sidaas oo kale la ku dambaysiinay